بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك كسر دوادا مركلة برنامجيني عافيمادك امتحانها إن شاء الله ما أنت وحن شرحنا 10 كيني سجالات كورسين امتحانها وكوكبنت كنتك 10 أو مهلينه هو يدا يدلانك يحنونه كحريريسن مرك إن شاء الله 10 كيني سجالات ما أنت وحن وهلينا cuntoyinka ama nafaqooyinka iyo fitamiinada iyo macdanta hooyada u baahan tahay xilliga uurka ama uurka xilliga ay leedahay. Waxaan soo sharaxnay 8 qayb qaybihii hore oo dhan waxa ugu soo hadalnay maxaa keeno dhalmo la'aanta, waxaan soo sharaxnay dhalmo la'aanta cudurrada keena, sidoo kale dumarka aan qabin cudurradaas tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si ay uur u qaadaan ayaan soo sharaxnay. sidoo kale waxaan soo sharaxnay sida baaritaanka uurka loo sameeyo adigoo gurigaada joogo. waxaa kaloo soo sheegnay qaladaadka dumarka qaar ay sameeyaan marka ay baarayaan oo waxaan dhahnay mararka qaar yani calaamada negative wax u eg ayaa soo baxaya taas oo ah qalad dhacay laakiin negative ma ahan. sababaha keenana waan sheegnay sida loo kala saaro calaamadaas negative-ka u eg calaamadaas oo inaadan uur lahayn kuu muujinaysa laakiin qaladka ah oo laga yaabo mararka qaar inaad uur leedahay sida looga saaro يعني علامة نيجاتيف كأما علامة شيء إن هذا الأور لهن هاي نوصل شرحني سيدو كل واحد نوصل شرحني علامة ده لو قرته أور كعصب يعني أيضا نوصل فاهني سيدو كل واحد نوصل شرحني لح شيء أما لح وحيالات وعدي عبته أما عنته يعني حليس أما قطر أوكيني كرا أور كجرته يبدي بيتوين كدش تلح هذا الشيء أيضا 10 كانوا قدام بيه أيام نوصل شرحني مركز حديث ديداس قيم مستداس 10 يكون عفين waxaa kala socon kartaa linkigan korkayga ka muuqda yani oo hadii aad page-ka nagala socoto way hadii aad nagala socoto YouTube-kana yani gadaal ayaa u raaci kartaa waa arki kartaa muuqaalada insha Allah marka aan dhameeyno koorsadan waxaan rajaynayaa in gabdhaheena ama dumarkeena Soomaaliyeed ay ka xaqatiri doonto koorsadan wax walba oo ku saabsan hooyada iyo dhalaanka iyo xanuunada ku hareeraysan iyo guud ahaan xanuunada ugu badan ee dumarka asiiba marka ka faa'iideyso insha Allah waxaan dareemayaa in wacyigelinta ay aad idinku yar tahay marka kontanka 10 waxa ugu talagalnay in ugu yaraan baahidiina inta ugu badan aan ku xaqatirna haduu Ilaahay yiraahdo si yani hadii aad u baahataan wax kasta oo la xiriiro hooyada iyo dhalaanka iyo guud ahaan xanuunada ku hareeraysan ama dumarka asiiba yani si kontanka 10 kood ugu muhiimsan aan ugu soo koobna ayaan koorsadan ugu talagalnay maadaama su'aalaha ugu badan يعني ay noogu yimaadaan dumarka sidaas ayaan u go'aansadanay in waxyaabaha ugu badan ay soo weydiiyaan ama xanuunada ugu badan ee dumarka asiiba inaan ugu hadalno koorsadaan iyo hooyada iyo dhalaanka iyo waxyaabaha ku hareeraysan sidoo kale macnaha xanuunada guud ahaan dumarku ku dhac kuwa ugu badan iyo hooyada iyo dhalaanka yani iyo waxyaabaha la xiriiro oo ah ka soo bilaabo hooyada marka ugu horeysa uurka qaado yani waxyaabaha u diiday inay uurka qaado waxyaabaha u fududeynayo uurka cudurrada hadii ay ku dhacaan yani ay adagtahay inay uur qaado xanuunada laga daaweyn karo calaamadaha lagu garto ilaa hooyada yani markay uur qaado marxaladaha ambilaha kala duwan ay marayso nutritionist nafaqooyinka loo baahan hooyada inay qaadato waxyaabaha ay tahay inay iska ilaaliso ilaa cunuga ay ka dhalayso yani xaalada marxaladaha kala duwan ay marayso xilliga foosha يعني waxaas oo idil insha Allah koorsada inta ay socoto ayaan ku dhameystiri doonaa qaarna waan soo sharaxnay inta dhimanna kontanka 10 yani oo ugu talagalnay ayaan ku sharxi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo waa idin hagar bixi doonaa idin caawin doonaa insha Allah igala socdo YouTube-kan iyo sidoo kale page-kan yani hortiina ku soo qoraysa ujeedaan marka yani inta badan casharada yani ayuu complete ama dhameystiran waxaan soo gelinaa YouTube-ka laakiin linkiga halkan waan soo dhignaa marka linkiga hadii aad ku dhufato toos YouTube-ka ayuu ku geenayaa marka hadii aad yani gambaleelka aad rukumato halkaas ayaa kala socon kartaa casharada taxanaha oo maalin kasta aan soo gelino hadda waxaan maraynaa 10kii 9aad ayaa maanta sharxaynaa insha Allah 10 ayaa hore u soo sharaxnay marka fadlan la wadaag casharadan taxanaha ee asxaabtaada kuna soo dhawaada muuqaalkeena 9aad ama part 9 cuntooyinka iyo nafaqooyinka iyo fitamiiniska iyo macdanta ee hooyada u baahan tahay xilliga uurka yani hadii ay wayso waxa ka dhalan kara xanuuno iyo dhibaatooyin ayaa ka dhalan kara
marka mid ayaa u sharxeynaa mid walbo yani haddii tusaale oo kale macdanta haddii AYS xanuunada ka dhalan kara fitamiinada qaar fitamiin walba yani noociisa waa sheegaynaa haddii AYS dhibaatooyinka dhalan kara marka maanta waxaan ku bilaabeynaa macdanta nooca loo yaqaano ironta haddii hooyada ay wayso dhibaatooyinka dhalan kara oo waxaan bulshada ay dhahaan dhiig la'aanta يعني hooyadan dhiig la'aan ayaa ku dhacday dhiigka lagu shubay ayaa maqlaysaa xilliga ay foolanaysa ama ay dhalayso ama xilliga ay uurka leedahay dhakhtarka wuxuu dhahayaa yani dhiig la'aan ayaa ku haysa marka dhiig la'aantaas waa maxay ayaa marka hore isla sharxeynaysaa u fahanno magacaas dhiig la'aan meesha laga keenay wax loola jeedo kadib ayaan sharxeynaa yani waxa sababo calaamadaha lagu garto dhibaatooyinka dhashto iyo sida loo daaweeyo marka hore waxaan ku horumareynaa yani dhiig la'aantan la sheegaya ama ironta ama macdanta yaraanayso maxay tahay saa ognahay dhiiggeena wuxuu ka kooban yahay laba qayb unugyaha oo loo yaqaano cells iyo qayb fluid oo ama dareere ayuu ka kooban yahay oo biyo ah ama dareere ah ayuu ka kooban yahay marka qaybta unugyada yani ayaa saddex ka kooban qaybtana qusayso waa qaybta saddex ayay ka kooban tahay oo kala ah red blood cells ama RBC white blood cells ama WBC iyo platelets marka midkan kore oo RBC ga ayaa ah midka aadka noo sii quseeya markaan ka hadlayno wax loo yaqaan dhiig la'aanta ama macdanta marka ay yaraato marka RBC ga ama red blood cells ka main component-kiisa ama waxa ugu muhiimsan waxa waaye hemoglobin marka hemoglobinta waxay ka kooban tahay laba qayb oo ah heme iyo globin marka qaybtan sii qusayso waa qaybtan hemka qaybta globinta oo proteinka ma ahan qaybtan hemka marka yani waa qaybta ironta ama macdanta ay ku jirto waaye marka macdantan ironto يعني ساندريمينا مركا يعني رد بلاد سيلسكا أما RBC أما ونجد دينك اسم الله سمين كرو حدي معدنتان لواي وقيبتان هيمتان لواي مصر ما يسمعي لو يحكوكو بيها ومصر ما يسمعي حدي أوصل ما يسمينا ما حدعي يعني واحد دعاي RBC إنه يراد حدي RBC يراد ما حدعي واحد دعاي إن شقدي RBC أما رد بلاد سيلسكا ونجد دينك أساس عماش كبحث الشقدا سواء إن أكسجين أو غارسية دمان جيرك أودن أو كجرو أو كجرت معونه جماش نقصي ماشى سواء مركز حدي ايرون تأم ديك معنا ماشى لايك أنا مجا هو ديك كده عيار ديك نوش بانتاي يعني أما أنيمي أم ديك لا أي هاي ماشى لايك أنا يواي مركز حلي بقولك معنا مركز يعني حدي أو RBC أما نقول ديك أساس أي رادان أنا السبب اللي حريرة iron أما معدنتي ويراتي درتك waxaa dhacay in oxygenka oo banaanka aan ka qaadano in tissue ama unugyada wax gaarsiin la waayo ilaa saa ognahay unuga oxygenka yani hooyada ayuu soo maraa iyadoo asoo ka sii gudbaya placentada ama ibida wax loo yaqaan marka hooyada di RBC-geeda ama dhiiggeeda oo yaraado waxaa dhacayo in unugu wax oxygen gaarsiin la waayo haddii unugu oxygen la gaarsiin waayo waxaa dhacay in complication ama dhibaatooyin يعني أوكراني كرا ودنبين إنه دنت أورك وراح دنت أم أورك كدب دباتوين عنقص أولنا لان كرا إنه أوكراني أورجانيس في سقار سفاع ود في الأوكرين ويان أم كريم في يعني أسميه ويان أم دبات أم قطر عافمات حلس قول ما كرا عنقص سيدا كريم دي سحل وأورك إني آد ويراتو مركع عقبات بدن أيها كدشتو يعني هو إذا نفط إذا نوصل معي عقبات هاس عنقنا حلس أيوب ليا أو إنه دنت حتى أيوب صوب كرا يعني أكسجين خدوا يرا صوبتو oxygen la'aan yani cunuga uur ku jirana ma noolaan kara hooyadana ma noolaan karta marka hooyada haddii oxygen ku yaryahay xitaa ee noolaata waxaa halis ama khatar galaayo cunug uur ku jiro marka yaa sababo khatartan cunuga ku imaan karta ama hooyada ku imaan karta oo ah macdanta inay yaraato oo bulshada waxay u yaqaanaan dhiig la'aan oo qofkan dhiig la'aan ayaa ku dhacday oo ah macdanta inay yaraato ama iron deficiency anemia wax loo yaqaan xilliga hooyada uur ku jirto marka su'aal ayaa laga yaabaa inaad isweydiiso inta waxaan sabab guda galin taasoo ah maxaa yareynayo dhiiga hooyada yani xilliga ay uurka leedahay haddii ay caadi tahay xilliga ay uurka lahayn in su'aasha jawaabteeda oo kooban ayaa ah maadaama hooyada cunug uu ku abuurmay yani jirkeeda wax kale ay kusoo ziyaadeen dhimandiga ama xaddiga macdanta ama RBC-ga yani samaysankiisa loo baahan yahay ama numberka RBC-ga ama red blood cells ama unugyada dhiigga asaas loo baahan yahay wuu ziyaadayaa maadaama hooyada cunug uu ku abuurmay cunugaasna perfusion ama dhiig fara badan oo u baahan yahay oxygen fara badan oo u baahan yahay yani laba laab ay noqonaysaa intay hooyada awl u baahneed hooyada caadiga yani aan uurka lahayn intay u baahneed ama gabadha caadiga oo uurka lahayn intay u baahneed laba laabkeed yani ayay u baahanaysaa markay uur qaado maadaama cunug uu ku abuurmay cunugaasna u baahan yahay yani nafaqo in la gaarsiiyo nafaqada waxa qaadana ay tahay yani dhiiga oo macnaha cunuga placentada iyadoo loogu soo gudbinayo sidoo kale oxygen ay u baahan tahay hooyada si cunuga يعني أكسجين كأسنا قيبتيس لو سي جود بيسي هالكاس كريم أو سماعي
marka maadaama laba laab ay u baahan tahay intii awal u baahneed yani waa sababta keenayso in hooyada haddii markay uur qaada yani ay waxyaabo nafaqo leh ama fitamiin ama macdan ama waxyaabo yani cuntooyin yani waxyaabo aan sharxi doono insha Allah kordhinayo oo fitamiinada ama macdanta iyo wax lamid ah kordhinayo haddii ay qaadan wayso waxa dhacayo in yani cunug iyo ayadaba dhibaato ay ku timaado markii ina fahanteen ayaa rajaynaya marka waxaan u gudagalaynaa yaa sababo ama yaa ka dambeeyo dhiig la'aantan ayaan si toos ugu gudagalaynaa qodobkaas yani oo ah in laba laab ay ziyaadayso inta loo baahnayo markay uurka lahayn taas waa qodob si jarnaal ah yani oo qofka xataa uu dareemi kara maadaama cunug uu ku abuurmay marka waa maxay waxyaabaha la xiriiriyo inay sabab u yihiin in hooyada uu dhiig la'aan ku timaado kow waxa waaye haddii hooyada iron ama macdan ku filan aysan qaadanin يعني وعلامة laga qaato arki doona waxyaabaha laga helo marka aan daawada sheeganaya sheegi doona marka hooyada hadii macdan ku filan ama laba laab intii hore yani qaadan jirtay ay qaadan wayso waa waxa koowaad ee sabab u noqon kara in hooyada anemia ama dhiig la'aan ama iron deficiency anemia wax loo yaqaano ay ku timaado laba waxyaabaha keeni kara waxa kamid ah hadii hooyada awal dhiig la'aan ay hore u hayso intii uurka qaadin ka hor hadiiba يعني dhiig la'aan ama anemia ama iron deficiency anemia wax loo yaqaan hadii haysay oo yani macdanteeda ay yareedbo ee sidaas uur ku qaado yani macdanta way sii yaraanaysaa hadaysan cuntadeeda iyo waxyaabaha ay qaadanayso oo gadaal aan ka sharxi doono qaybta daawada marka sheegan aysan waxba ka bedelan ama aysan ziyaadin hooyada waxa ku imaanayo in yani heerka ay joogtay oo dhiig la'aanta markaas haysay inay hoos ugu sii dhacdo marka qodobka labaad ee sabab waxa waaye hadii history ama horeba yani u qabtay yani anemia ama dhiig la'aantan ay uur qaado way ka sii dareysaa hadaysan yani nolosheeda waxba ka bedelin saddex waxa sababa hadii hooyada yani uurka isku xijiso oo ilmaha waxa loo yaqaan isnuuga ay ka dhigto ayadana waa arin kale ee la xiriiriyo marka hooyada waxa loo baahan hadii hadda ay dhasho space 6 bil ama hal sano ah yani in ay sugto kadib ay uur qaado macnaha hadii laakiin uurka isnuuga ay ka dhigto hadda iyadoo cunuga dhashay hadana hore uurka ka qaado ayna waa riski ama waa khatar kale oo fududeynaysa hooyada macnaha anemia ama dhiig la'aantan inay ku timaado marka hadii aad isku aragto dhiig la'aan ama anemia wax loo yaqaan iron deficiency anemia macdantaada inay yaraatay hadii aad isku aragto yani ilmahaana ay isnuujisiin macnaha hadda yani marka dhashay hadda hore uur ka qaaday yani khatarta ama dhibaatada waxay kaaga timid yani uurkaas isxigxiga oo aan space-ka ama yani waqti aadan u dhaxaysiinin markina fahanteen ay rajaynayaan sidoo kale waxyaabaha keeni kara waxa kamid ah hadii yani hooyada ilmo mataana ay caloosha ay ku wado markaas perfusionka iyo dhiiga iyo waxay u baahan yihiin oxygenka aad ayuu u ziyaadayaa xadigiisa marka ayadana yani hadii mataano oo kala oo laba ama wax ka badan caloosha ku wado oo uur aleeda waxa fiican yani iron fara badan in qaadato ama meelaha laga helo ama daawooyinka la isticmaalo gadaal ayaan ka arki doonaa insha Allah laakiin waxa loo baahan yahay hooyada in si joogto ah dhakhtar ay u xiriirto macdan badan ay isticmaasho si RBC ama red blood cells-ka oo san hoos ugu dhicin si xanuunka anemia ama dhiig la'aanta oo iron deficiency anemia loo yaqaan aysan hooyada ugu imaan inay fahanteen ay rajaynayaan marka intaas waa waxyaabaha keena ama cause gareeya ama sababo ama la xiriiriyo inay timaado dhiig la'aanta hooyada xilliga uurka marka inay fahanteen ay rajaynayaan calaamadaha lagu garto dhibaatooyinka dhashto iyo sida loo daaweeyo cashirkan kan xayaa ku sharxi doonaa bas cashirkan intaas ay ku soo koobeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.